عبد العزيز حليمان آد ومهتسن يحي وانين سيادوكتين قراءة ورياء هذا الكوس علي هي لندن إيجانا بدنا إماتنكا هالكن UK أما لندن وحا سلامي يا دمان مرتشرف كان سوتمت حمناها كونسل كنبضة أن حلبان إبراهيم ومتى بمرننه وحن كفر أحسنها أنتي مناسبة دان قالقة كسوق الكلكينا وحن مهدو علينا انت كشقيسي organize كرسي أبابو شيء كفكرتي إيو انت لو سورة الجلسي كقيب قادة شذا إيو إماتين كينا حل كان إنا مناسبة دان اللي كلاقيب قادة سيبا قبلها الصومالية إذن لجوغا حل كان إسكيغا إسكول وموجي حفلة نوموجي حفلة مثل لقوا مارمان كقيب الكيد إنه تحوانا نوم وقطع الكيد أرنت هرنا وعبرنا وعفر حد وين إياه كسوق القلقة كالورين جنتا حلقة أن بيس كونسل وما أكو كلية حل للك الوريقي لكن وحنو أكا لسن ومدى الصومالية إنا بحتان التحيي waxa umada Soomaaliyeed ka maqan dhismo ama abaabul ama structure isbedel lagu dhex sameyn karo kobci kara dhexdiisa wax lagu saxan karo muddo badan ee umada Soomaaliyeed ka maqneed maanta intii yar baa dibadda la timaadeen annagana intii weyn baa gudaha kula galgalanayeen diinna isbedelka ay maanta sameynayso iyo quruxdeeda waan idinkugu hambalyeynaya runtii waxaan u hambalyeynayaa halkii sano ay soo wadeen councilka xubnihiisii madaxdiisii sare abaabulka ururkan ay soo gaarsiiyeen marxaladan waxaan kaloon u hambalyeynayaa hambalye keliya ma ahe aan leeyahay ilaahay ha idiin fududeeyo xilka waa xil culus xil markii la yidhaahdo waa xil inta garan kartaa la wareegidiisa iyo qabashadiisa wax weeyeen farxadna way tahay mas'uuliyadna way tahay waxaan ilaahay uga baryayaa shakhsiyaadka cusub mas'uuliyiinta cusub ee la wareega xilka ururkan inuu ilaahay u fududeeyo hawsha iyagoo ka fakaraya aaminsan inayan ahayn urur keliya oo ay la wareegeen ay tahay mas'uuliyad culus ee ummadda Soomaaliyeed ay u baahan tahay ummadda Soomaaliyeed haddaan gadaal u milicsano dhibaatooyin badan waxay u soo mareen structure la'aan dawlad la'aan kala dambeyn la'aan xil kala wareejin la'aan wada shaqayn la'aan maanta intii hadday noo bilaabato waxaan maleynaa dariiqa caddaan cagta saarna dhibka uu leeyahay wada shaqayn la'aanta dhibka uu leeyahay structure la'aanta dhibka uu leeyahay kala dambeyn la'aanta dhibka uu leeyahay isdoorasho la'aanta ma aha wax ummadda Soomaaliyeed maanta aan uga sheekeynayno waa tan halkaan la keentay waa tan dhibaatooyinka ummadda Soomaaliyeed ku hagsatay meel walba aan ka dareemayno oo aan ka dareemayno guryaheennii oo aan ka dareemayno dhaqaalaheennii iyo jeebkeennii oo aan ka dareemayno maskaxdeennii oo aan ka dareemayno ahalkanagii oo aan ka dareemayno sharafkanagii iyo qiimihii qaran u lahaa waa structure la'aan structure marka aan leeyahay waxa weeye kala dambeynta noocaan oo kale ah intaan maanta aan ku fadhino waa dawlad runtii waana ku faraxsanahay aragtida noocaana dad xil qabtay isku ogolaaday ka wada shaqeeyay isi siiyay isku bedeli kara haddana xubin intay tagto xubinta kale u daashihin kartaa ama u hambalyen kartaa ama siin kartaa inay isbedel noocaas wax walbana marka ay bilowdaan waxaa la rabaa hore inay u socdaan gadaal inay u socdaan waxa weeye khasaara ku jirta ummadda Soomaaliyeed markaan dawladnimadeena arko waxaan 17 sano mareynay mar walba intii wax la abuuro in la yiraahdo wixii in la balaariyaa la rabaa wixii in laga wada qayb galaa la rabaa wixii inaan qurxinaan la rabaa haddana ma sameeyna taas
waxaan sameynaa wixii yaraayo inoo jiraan cunaa 17 dib u heshiisiinada ummadda Soomaaliyeed soo mareen 17 sano dawlad la'aan aan ahayn mid walba waxay kalifaysay wixii yaraa ee noo sameysnaa inaan intaan qurxinno hore u socodsiino aan ka fakari lahayn wixii yaroo dhisan intaan la soo cararno intaan oo kala dhexkeena naganahay kii hore waa naga haleysnaa ama kii hore isbedel rabnaa inaan ku sameyno ama kii hore waa rabnaa inaan qurxinno maxaan ka sameynaa markaas waxaa la yiraahdaa formula cusub la soo fakaraa ilaa iyo reerkiisa ugu dhashay ya heerkaas waxana martin kara waa garanaysiin waxa weeye waxa maanta ku samaysan hadaadan hore u wadin oo aadan kobcinin oodan isbedel dhexdiisa ku sameynin oo aadan nabadda dhexdiisa ku sameynin oodan isbedelka dhexdiisa ku sameynin oodan hore u wadanin haddaan mar walba ku fakarno waxaan saas idin leeyahay waa laga yaabaa inaan leedihiin xafladiinan maanta maxaad igu heshiisiintan iyo waxaanito structurekan gadaal ay uga fakaraysaa laakiin waa wax caloosha naga hayo aan aaminsanahay ururka noocaan oo kale ay ka fakara nabadda inuu ka fakaro because nabadi waa dawladda waa rule and law dawladdu waa naqdayn dawladdu waa structure dawladdu waa kala dambeyn intaasoo dhan waxaa ku dhex jiro macnaha uu xambaarsan yahay maanta ururka halkaan oo isugu nimid magaciisa taasa iga soo dhexgelaysa marka inaan arrimaha wadanka gudihiisa jirana aan idinkugu dabaqo haddii aad nabad rabtaan waxa weeye inaad u sahashaan ummadda Soomaaliyeed inay kala dambeyn iyo dawladnimo hore u socota ay hesho waxaanan haysanaa maanta xogaaga yaroo noo dhisan ka soo dhexbaxay dib u heshiisiintii lagu qabtay dalka Kenya taasoo suurtagelisay in la sameeyo baarlamaanka Soomaaliyeed nambarku rabo tayadu raba noo noqdo alxamdulillah suurtagelisay in madaxweynaha Soomaaliyeed lagu doorto suurtagelisay in prime minister iyo gudoomiye baarlamaan la sameeyo suurtagelisay dhexdiisa isbedelo badan inay dhacaan gudoomiye baarlamaanka laga qaado gudoomiye lagu bedelo prime minister laga qaado mid lagu bedelo wasiir laga qaado aniga in hortaagan wasiir lahaa 3 bilood ka hor laga qaado xildhibaan ku soo haro mid kale maalin bedelo wax soo noqdo intaas oo dhan waxa weeye waa wax maanta la rabo nabadda halkaas u fadhida waa ku midowleen adiga ummad Soomaaliyeed dibadda joogo dhibka idin haysta aan garan karno nabadda aad ku midowdeen oo isugu timaadeen waqtigiina u hurteen oo danihiinii badnaad oo la soo tagteen waxa weeye nabaddaas halkaas taallaa in la afkeeyo dawladnimada halkaas taallaa in la kala afkeeyo kala dambeynta in la afkeeyo wada hadalka la adkeeyo wada shaqaynta la adkeeyo la isxasuusto la isdareemo kan dhib badan kan dhiban wax loo qabto kan wax qaban karaayo kan dhiban caawino wada shaqayn ilaa halkaas heerkaas gaari kartana waxaan rabaa inaan u soo jeediyo gabdhaha mug weyn ay ka qaadan karaan waan u jeedaa tira ahaan waa isla egtihiin waxaan jeclaan lahaa markii nabad laga aan nabad ka hadlayno ama wada shaqayn aan ka hadlayno ama dawlad ka hadlayno ama kobcin raad ka hadlayno ama waxtar ilmo aan ka hadlayno hooyooyinka waa uga dhibadan yihiin ragga waxaa laga yaabaa dhibka uu qabaa inay tahay maxaa helaysaa maxaa ku fadhidaa maxaa kuu suurtoobi kara kaliya inuu ka fakaro hooyada laakiin ay ka fakarayso maxaa kuu suurtoobi kara oo gurigaagii ilmahaagii odagaagii iyo noloshaada iyo nabadaada aad ku soo ceshan kartaa hooyo kasta maanta inay ka dhib badan tahay aabbayaasha halkan joogaan aaminsanahay hooyooyinkay hoos u wada weynaayaan odayaashii inta badan ay ka tageen ay single mother yihiin caruurihii ay ka koreen oo laga yaabaa caruurihii ay ka waaweynaadeen dhib culus oo aan isla wada ognahay ay nagu wada hayaan mid nolosha ka xumaatay mid iskoolkay ka tagaan mid war ka naqli waayaan mid ay yanogeen caawa meesha uu ku sugan yahay ay wadnaha farta ku wada hayaan hooyo tii halkan joogtoo la islahaa sid kursi weynay haystaan waddan ay haystaan lacag ay haystaan dhaqaale ay haystaan dhibka ugu culus inuu haystaan aaminsanahay tan la isleeyahay wax ma haysato waa dhibatahay xabadda dhulkeeda ku socotana iska badaaba lama malayn karo lagama sheekeyn karo waxay habeenkii ku seexato sidaas daraaddeed gabdhaha Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ku booriyo inay dawladnimada u istaagaan dawlad wax ka qaadisan male oo guri iyo hooyo ciil uga baxaan
إن ay gacan qabtaan walaalahooda ama tadbursiga isku dilaya ama waxayna isku dilaya ama qabiilka isku dilaya waa 17 sano meel tadbursi iyo xoog iyo qabiil lagu gaari karaa male ugu dambeyntii waxaan garanay in structure wax lagu noqon karo la isku yimaado la wada hadlo wax la isla meel dhigto waxaas dhexdeedana la isku kobciyo aan dawladnimo ku gaarno قالوا أقول لنا لا نملينا يا وامد الحين قبل هدي وحضرنا وانحبينا شيء وحي سؤال كذلك كصوب في الجوانان هذا ندخوهم فلينا حفلتها قروح بالبضن كلا دبنت هي معناها وين حباسطها وفالبعيد كسيدنا حنبلينا لكن وحنا أبوان بلينا نقول كن زمان بيس كونسل يدك قبل قابين هذيك وحنا دير رجينا إن قريبة تكفي كتان رأي قمر صوماليا وحيسويسا دك أيقو فكرة صوبة